Sasa nini imetendeka? Nimeacha. alxamdulilah waxaan faraxsanahay farxadda ilama soo koobi karo. waxaa xaqiijin kartaa in sawirka gabadha ninka lala soo qabtay ay tahay saaxiibta Xabso? haa ayaga waaye labadooda iyo midkii la jiray. marka eedeysanaha kale muxuu ahaa isla leedahay? midka saa yeelo waa qaraace jirka ii geystay. dhanka kale tani markii lagu abduubtay lacag intee dhan laga dhacay? lacag waxay kala baxeen accountadee waxay ahaydeen 658,000 oo lacagta Kenya ah. mid kale aan ku lahayna way jirtaa. waan gartay marka imise lacagta lacagtaas waa imise? mid aan ku lahay 700,000 wax la jiro. marka maxaa caddeyn aad u haysaa in saaxiibta ay ku shaqeysay? caddeyntahay waxaa waaye ayada iga watay anoo shaqadayda joogo meesha i geysay. marka xagee ka watay? waxay iga watay meesha shaqadan joogo. xagee ku geysay? xageen i geysay meesha oo lagu afduubi Kayole meel Kayole la dhahay. marka maxaa ka jira inaad ganacsi isku darsateen? ganacsi ayada ay dhahday ganacsi isku darsanayna ayada ganacsi waxay haysaa oo qaraangada ay dhigi jirtay lacag isii lacagtaada waan ku soo celinay faa'iidana waan wadaagina kuligeyna faa'iido kama arkin. lacagtaas ka qaad way mise? lacagta nus ay qaadi jirtay waxay gaartay 700,000. markii adiga lagu qabanay ama lagu afduubanay ayada xagee ku soo? ayada way taagneeday wayna sala jireen way taagneeday ayada. meel baa ka wada tagteen sida muuqaalka laga dhaxalkay CCTV-ga. marka sidee isku weydeen markaa ka tagteen? wallahi ana markii ay qaraaceen ay tumeen maalinta markaas ay ugu dambeysay anna waa xanuun dareemaya. waxaa jirta muuqaal baraha bulshada lagu faafiyay ee CCTV aad adiga ka dhex muuqatay gabadha kale. waxaa jira sidoo kale nin meesha agteeda fadhiyay isla markaana gabadha ay agtay. maxaad aqoon u leedahay ninkaas? ninkaan nin diris u ahay oo meesha isagana ka beecsharaysanay ma ogi wax isku ma la shaqo isku ma laha. sidee uu afduubka u dhacay? afduubka soo dhacay gabadha isoo wacday salaadii subaxii waxay ugu dhahday lacagtaadan ku soo siinaa meel store ayada leedahay waan gaday dhahday markaas lacagtaada ku siinaa. maxaan dhahay nafaas ma hay soo martay qafaan wadanaynaan dhahay waa iga diiday. waxay dhahday aan la israacayna namari waa aaminaan waan raacay. maxay dhibaatay ku geysteen kuwa afduubtay? dhaawac xataa wajiga iyo gacanta ma ogi wax kale ii geysteen wala. tani markii lagu soo badbaadiyay waa sidii xaaladaada caafimaad ilaa hadda waa sidii xaaladaada caafimaad? alxamdulilah horta dad badan ii soo duceeyay markaan maqnaayay wallahi wax saas soo gaaray ma laha caafimaadkaygu iska fiican alxamdulilah. habeenkina waan seexdaa walwalna ma qabin. maxaa hadda ku qorshaysan? hadda wallahi waxaan rabi lahaa intii cadaalad in laga hadlo oo dadkaasna dhibka aan soo mar in la mari la ciqaabo ayagana. marka maxay tahay baaqad u diraysa bulshada waa mahadsantiin intii ii soo duceysay dhan ajar Allah ninka siiya. waxaan dhihi lahaa gabdhaha Soomaaliyeed inay is alaaliyaan saaxiib iyo waxaas dhan ay aaminin kaligooda inay ahaadaan cadowgu soo batay cadowgu badan yahay hal is alaaliyo. hada u mahadsantiin dhamaantiin. taasina waxay ahayd Xabse Maxamed Luqmaan oo ka sheekeynaysay qaabkii loo afduubtay iyo ciidii afduubatay.